بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan madasha waa salaamaya rag iyo dumarba waad ku mahadsantihiin sida aad uga soo qayb gasheen intaa kadib anigu waxaa la yidhaahdaa axmed ugaas cumar ugaas xirsi maanta waxaan halkan u imaanay ma ahan wax gooni ah oo ka hadlayno waxaa weeye waa wax guud waa dhibaatada gobolka ku sugan in aan ka dirno baaq ku saabsan dowladda soomaaliya ee dhexe maadaama sidaa jirto odayaashii dhammaan waa joogaa beesha sare ama jubbaland gobolka geda gaar ahaan ayagaa ka hadli doono maadaama aan anigu dhaqankii ahay waxaan u adkaysan weyna dhibaatada gobolka ka dhacayo oo ay dowladda federaalka u geysanayso waa la aamusi weynay bah iyo boqorba waana soo kicisay dhammaan dadkan shacabka ah oo u dhashay jubbaland gaar ahaan gobolka gedo waxay u imaadeen waxa weeye inay runta sheegaan u sheegaan dowladda federaalka ee dhibaatada ay nagu hayso dhibaatadaasoo noocyo fara badan isugu jirto oo ay odayaasha iyo indheergaradka iyo mas-uuliyiinta ka soo jooda gobolkaas ay sharixi doonaan oo maanta meeshaan fadhido intaa kadib waxaan leenahay dhardhaarka wixii gubayaa dheriga kariyo waa gubanay waa dul qaadan weynay haddaan nahay jubbaland gobolka gedo waa dul qaadan weynay waa u dul qaadan laanahay dowladda federaalka waxay nagu samaynayso ma yeelayno mana u adkaysanayno waxaan leenahay ka madaxweyne ahaan iyo ka maamul ahaan dowladda federaalka ah waxaa haray waa wax yar soomaalida waxay ka ducaysataa sanadkii horey haraantidiisa allow na dhaafi kan soo socdana allow hardidiisa na dhaafi maamulka hadda jiro waa u dhammaatay muddadii haddee haraantidiisa waxaan doonaynaa ilaahay waxaan ka baryaa inuu dhinac naga mariyo haddee kan soo socdana wuxuu noqon doono ma ogine sida waxay diyaar u yihiin oo jubbaland diyaar u tahay gobolka geda diyaar u yahay in haddee maamul ay ka dhex muuqan doonaan ay ku qaldami doonin oo qeybtooda iyo miisaaniyadooda sida xaqa ah ay u helaan inay kaga qeyb qaataan soomaalida waxay tidhaahdaa gudinay haddaan gobolkayga kugu jirin gobolkayga kugu jirin imaada goyseen dowladda federaalka ah haddii aana gobolkanaga ku jirin gedo maanta kamaanan hadalneyn kamaan aanan hadalneyn waa is ognahay waxaan leenahay dowladda federaalka how idinma suurtogelayso sida aada gobolka u dhex gasheen ma idin suurtogelayso mas-uuliyiinta siyaasadda ka xishooda waxa aad samaynaysaan ragga ku dhex liman maamulka iyo siyaasadda ka xishooda gobolka adinkaa u dhashay gobolkiinuisa magaxumo waxaan hadalkayga ku soo gebagabaynayaa oon odayaasha ugu gudbinhayaa maanta inaan laba mid noqonno inaan waxa aan ka cabanayno oo dhibaatadoo haystana laga daayo oo aanu maxay ahayday noqonno dadka xuquuqdooda ka helo dowladda federaalka iyo maamulada jiro marka waxaan intaa kusoo gebagabaynayaa hadalkaygii shirkan waa idiin furan yahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله marka hore waxaanu aad iyo aad u bogaadinaynaa una ducaynaynaa ciidanka soomaaliyeed oo dagaalka kula jira nimanka khawaarijta oo culayska dalka ku haya horeyna dalkii uga dhaqaaqi waayey hadday puntland tahay iyo hadday ciidanka federaalka tahay in alla intii ku shahiiday dagaalkaas iyo halgankaas ilaahay khayr iyo jannaha ugu bedelo inta dhaawaca iyo dhibka qabta
ilaahay ha u boogadhayo. bogaadintaas ka bacdi waxaan rabaa halkan inaan ka xuso dowladdu markay dagaalkaas hadda aan sheegay ay ku jirto waxaa halku dhigeedu yahay waxaa la xoreeyey waxaan xoraynaynaa. wayba tahay oo waa midda aanu bogaadinta ka diray oo aanu sheegnay, laakiin dal baan xoraynayaa. jubbaland waa cayrinayaa, puntland igama tirsanayn, somalilan ma hayn, dalkii baana xoraynayaa. intaana in ay tahay dowladdu midda cayrinaysa xaqiiqada meesha taallaa intaa weeye. waxaa caddayn u ah dagaalkii ay dowladdu ku soo duushay jubbaland guud ahaan oo ciidan soomaaliyeed oo ka dirira jubbaland la yidhi, markhaati cad bay ahayd oo taasu sidaa bay ahayd. waxay kaloo tahay maanta jubbaland oo aan la aadi karin, oo aan diyaaradu ka degi karin, meel dhifahoo hadda la sii daayey ma ahane, oo qofkii doonayaa inuu aado ama ninka mas-uulka ah oo xildhibaanka ahba ka soo qaad uusan aadi karin oo ka degi karin maalan magaalada kismaayo iyo gobolka gado uusan tegi karin. arrimahaas oo dhan waxay sheegayaan xuquuqda aasaasiga oo qofka muwaadinkaabay ka mid tahay dhaqdhaqaaqa iyo socodku. xuquuqda asaasiga oo muwaadinka ay ka mid tahay. ka waran marka xildhibaan deegaan doorashadiisii tahay kismaayo oo aan aadi karin, xildhibaan deegaan doorashadiisii tahay garbaharey oo aan aadi karin, intuba ay dowladdu ay ka celinayso. ayadoo guud ahaan sidaa ah waxaan rabaa inaan si gaara u xuso xaaladda gobolka gado. gobolka gado waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheego intaan ogeyn. soomaaliya inteeda kale waxaa gado kaga gudban oo ka xiga soomaaliya inteeda kale webiga weyn ee jubba oo aad taqaaniin. buundooyin webigaa saaran, iridahaas kooban baa gobolka gado xooggiisa aad ka gelaysaa markii aad gobolka gado u socoto. buundooyinkii waa go-een oo baabuuru sooma marto. waxaana markhaati kaa hadda baar dheere oo webiga labadiisa dhinac ku kala taalla. dhinaca soo xiga baay ama xamar jihadeeda xiga, gaariga joogaa hadduu u baahdo inuu dhinaca kala tago waa inuu inta luuq yimaado 200 iyo 300 kilomitr wax ku dhow maro, waa inuu hoos haddana gada ka soo maraa si uu u haleelo meeshaas uu u yimaado. dhibka gobolka gada haysta oo buundala-aantii ku keentay taabaa ka mid a. waxa weeye marka buundooyinkii oo go-ay yaa waxay noqotay meesha u furan ummaddaasu ay ahayd cirka keliya inay tahay si xamar iyo magaalo madaxda iyo dhulka soomaaliyeedba ay u aadaan. waxaa ka go-ay dhulkii, waa ka go-ay sababtoo buundooyinkii meelay u soo gooyaan ma laha. diyaaradahaasaa u furaa, diyaaradihii waa laga joojiyey. waxaad og tihiin inay dhacday gabar soomaaliyeed oo foolu dhibayso lala carari lahaa oo hadday tegi lahayd xamar ilaahay gaarsiin lahaa. kollay malageedii baa galay, muslimna waa nahay, laakiin isku day fiican inuu meesha ku jiray in la badbaadin karay inta cilmiga bani aadamka awooddiisu ay tahay. waxa weeye marka waxaa weeye diyaaradaha culayskaasaa ka jira dadkii. dowladda soomaaliyeed oo aad iyo aad xaqiiq markii loo hadlo ummadda soomaaliyeed waxaan qalbi jab ahayn aan ku hayn, waxaynu ugu baaqaynaa haddaad nabaddaad sheegaysaan oo xorayntaad sheegaysaan samaynaysaan, caafimaadka iyo badbaadada iyo gobonnimada iyo fiicnaanta iyo kalsoonida dadka inaad heshaan baa wax walba saldhig u ah. waxa weeye ayrabooradaas kismaayo, ayrabooradaas doolow, inta ayraboor hadda xiran inaad furtaan waan idiin soo jeedinaynaa haddii ilaahay kuwa uu xaqa iyo runta iyo xalaasha waafajinaya haddii aad tihiin. intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan la hadlo xildhibaanada deegaanka gada ka soo jeeda.
runtii waxaan idiin soo jeedinayaa kumiinaan aadi waayin inaad samaysaan hal wax oo aada u fudud oo ah mooshin baad geyn kartaan aad leedihiin waxaan soo jeedinaynaa in loo yeero wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka si loo weydiiyo waxa diyaaraduhu u tegi waayeen gobolka Gado waxay Kismaayo u tegi waayeen in gabadha wasiiradda ah walaashay la weydiiyo oo aad u yeertaan oo baarlamaanka ay timaado wax la samayn karo wey waxa weeye waxaad awoodaan in dhaqdhaqaaqa xildhibaanka maxaa joojiyay la yiraahdo uu u socon waayay xildhibaan aan awoodin meeshuu ka yimid inuu aado intaa oo dhanba mooshin aad samaysaan ayaa wuxuu gaari karaa xaqiiqada iyo runta iyo xalka ama foolxumo aan la dabooli karin oo la qaadan karin oo dowladda ku tiranta inay soo baxdo ama xal ummaddii aad matalayseen xal u ah labadaabaa midu soo bixi lahaayeen waxaa weeye marka intaa ka bacdi dowladda Soomaaliyeed qaran baan badbaadinayaa iyo dad baan silic u dilayaa isma qabato waxaan u soo jeedinaynaa marka madaxda qaranka Soomaaliyeed ummadda xuquuqdeeda asaasiga oo socodka oo dhaqdhaqaaqa oo safarka ah ha hor istaaginina ummadda dhul ay maraan iyo nabad ay ku maraan iyo jid ay u maraan waayay diyaarad ma raaci kartaan diyaaraduna ma degi karto ha oranina intaasaan idinkugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay qarankiina badbaaduu rabaa qarannimaa la rabaa dowladnimaa la rabaa midnimaa la rabaa qarankayna inuu badbaado oo dowladnimadu adkaato oo cizi iyo sharaf lagu wada noolaado xaq qof walba Soomaaliya saaran oo laga doonayo weeye ilaahay hayna waafajiyo intaan anagu rabno iyo intaan ku baaqayno iyo intaan hadda u jeednaana intaa weeye salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh